kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekadii curad oo aad halkan kala socoteen. sheekadan oo ah qiso dhab ah oo ku dhacday mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa qoraalkan ka sameeyay wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. halkaad kala soconaysaanna waa channelka Ogaalka Audio Som. ku soo dhawaada qaybta xigta qaybtii horay aad u soo dhageysateen. waa maalinkii 11aad oo aan ka soo maqanahay gurigayaga. dhinaca kalena waa maalinkii saddexaad ee aan ka warsugayo walaalkay joogay UK ee aan u qaylo dhaandirsaday. waxaan leeyahay rajo badan oo ah inaan xal u helayo arrimaha noloshayda hareeyay. waxaase dhacday arrin nasiib darro ah laakiin noqon karta soo dhaweynta gabagabada qisadayda. Salaad wuxuu ku guuldaraystay inuu fuliyo ballankeenii. labadeenu waxaan isku ogeyn inuusan cidna uga waramin halka aan joogo ama ku noolahay ee ah goobta uu isagu i siiyey ama i geeyey. taasna ma uusan ka soo bixin. wuxuu xogteedii la wadaagay xaaskiisa oo warkii u sii gudbisay walaashay Sahra, iyana u sii gudbisay xaafadii oo dhan. xogteeda waa la hayaa, waxaana hubaal ah in la igu soo maqan yahay anigoo warmoog ah. laakiin waxa kali ah ee aan ilaawi doonin ayaa ah sida wanaagsan ee uu Salaad iskaga xil saaray sida la socoshada xaaladayda, halka uu i dejiyay inta aan ku noolaa. waxaan ka nastay odaygii iyo gabadhii yareed ee salfaday xasiloonida noloshayda. arrintaasna waxay ii saamaxday inaan helo fursad aan si degan ugu lado noloshayda. ma garanayo sababta aan labadaas ugu arkayay kali ah agagaarka xaafadayda iyo gudaha qolkayga. maxaan ugu arki waayay halkanna? subax Arbaca oo intaan aroor hore toosay, haddana aan isleeyahay maanta ayuu kula soo hadlayaa walaalka aad ka sugaysay inuu kuu xalkeeno. weliba aan isaga cadayanayo xilligaas barxadda hoyga aan deganahay ayaa waxaa ii soo galay 3 nin oo uu wato walaalkay Maxamuud iyo Salaad oo wajigiisa xishood iyo cadho ay buuxiyeen. waxaa goobtii la iga garbaduubay anigoo xidhxidhan, weliba neefta aan si dhib badan ku qaadanayo. Salaadna waxaa haysata dacwad ah inuu nin xanuunsan oo ka soo cararay dadkiisa iyo in la daaweeyo uu isagu meel ku qarinayay oo hadalba uma furna Salaad. laakiin anigu markaas si ka sii daran Maxamuud ayaan u nacay Salaad. sida la ii sii waday ayaa la i keenay xaafadaydii oo dad badan ay hor dhooban yihiin. ma ahayn kuwa i soo dhaweynaya dadkan ee waxay ahaayeen kuwa igu wiirsanaya oo daawasho iyo madadaalo iga dhiganaya. waxaan xilligaas arkayay gabadhii aan ugu yeeri jiray qalbigayga oo ayadoo maro afka ku haysata iga soo dhex eegaysa dadka dhexdooda. aad baan ugu xiisa qabay araggeeda. 24 saacadood ayaan ruuxna la ii ogolaan inuu ii soo galo anigoo ku xidhan qolkaygii. kali ah gabadha cunnada ii keenaysa ayaa iyadoo cabsanaysa ii soo dhigta cuntada meel ii dhow. saacadahaas ayaa ahaa kuwii ugu badnaa ee aan arko odaygii iyo gabadhii iswatay. haba ugu darnaatee gabadha. ma jiro halgan ka culus kan aan sameeyey saacadahaas kooban oo aan weligay soo sameeyey, waayo waxaan beeninayay wax kasta oo ii muuqday. waxaan ka doorbidayay inaan arko wax kasta oo iga dahsoon. sida qorshuhu yahay, beri waxaa la igula kallihi doonaa xarunta cilaajka. waxaana isii kaxayn doona Maxamuud, maamada iyo dad badan oo ehel ah kuwaas oo ka war helay xaaladayda. waxaa dadkaas ku jira nin oday ah oo qoyska ugu beegan adeer guud, kaas oo ay wada hadleen walaalkaygii maqnaa ee aan u qaylo dhaandirsaday. waana nin oday ah oo arrimaha qoyska dusha kala socda. waxaa la soo gaaray xilligii ay qisadaydu micno samayn lahayd. waxaa iskeenaya waqtiga ay sacdayn lahayd qisadan mugdiga ah.
qof walba wax yar ayuu og yahay wax badan way ka maqan yihiin aniga ayaa doonaya inaan beri noqdo furaha qisadan oo waxaan sahminayaa halka ay ka imanayaan waxaan dhacaya oo dhan waa kuma abwaanka ii curiyay shirqoolkan gudcurka dhigay noloshayda haddaba si aan u helo xaqiiqada waa inaan beri ka dhigaa xarunta cilaajka meel xamaasad leh oo dadkii wada socday ay dib isu wada eegaan habeen iyo maalin mid la taagan yahay ma garanayo laakiin waxaan sugayaa keli ah in iriddaas la furo kadibna la ii kaxeeyo xaruntii la ii waday waxaan joojiyey cabsi iyadoo ay ii muuqanayaan odaygii iyo gabadhii wada socday waxaan daayay walaac ayadoo aan ogahay halka la ii wado waxaa iga soo hartay geesinimo aan isiri tan uma hadan dhalan la soco qaybta 7